kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aad ka daawan jirteen warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo fanka iyo dhacdooyinka cajiibka ah ee markaas la isla hadalhayo. Warbixinteena maanta waxaynu ku eegaynaa fanaan Cabdi Dhaanto oo ka warbixiyay sababta lagu xiray iyo fanaanka oo xoriyadiisa dib u helay. fadlan daawada inta inoo guda galin warbixinta nagu dhiirigeli subscribe gambaleelka furo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee hela warbixinada aan halkaan soo galino. like saar muuqaalkan oo share gari asxaabtaada ku mahadsanid. الفنان عبد دانتو عبد النور نهاية ayaa maalmihii ugu dambeeyay waliba 3 cisho ee ugu dambeysay ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. fanaankan ayaa dadka baraha bulshadu inta badan ku qaadaa dhigayeen isbuucani. fanaankan ayaa lagu haystay ilaa 3 meelood iyagoo dadka qaar sheegeen in fanaankan lagu xiray inuu hadallo uu sii sheegay oo ay kamid ahaayeen in la isku qarxin doono tiyaatarka qaranka oo mar dhow xariga laga jari doono iyo inuu nin ka shaqeeyo maxkamadda oo dhalinyaro ah uu ku tilmaamay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Cabdi Dhaanto Cabdi Nuur Nihaaya ayaa ugu dambeyn 3 cisho kadib ka soo baxay xabsiga. Cabdi Dhaanto Cabdi Nuur Nihaaya ayaa laga soo daayay xabsiga muddo 3 cisho ah oo uu ku sugnaa halkaasi. الفنان عبد دانتو ayaa warbixin uu soo galiyay boggiisa Facebook wuxuu ku yiri alxamdulillah waxaan xoriyadeyda dib u helay galabtay kadib muddo 3 cisho aan xabsiga dhex ku xirnaa. waan u mahad celinayaa qof kasta oo gacan ka geystay gaar ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ka xumaaday gudoomiyaha maxkamadda Banaadir. reerkayga gaar ahaan dadka aan ka dhashay walaalkay Maadi Sheekh Cabdullaahi walaalkay Xasan Maalin iyo saaxiibkiis walaalkay Nimcaan Hilaac iyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee ay dhibtay xarigeeda. warbixintan mid ka xiiso badan intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas nabadgelyo.